cudurka coronavirus ayaa horseedi kara inuu si xoog leh u sii dilaaciyo cudurka loo yaqaano jadeecada. hay-adda dhinaca horumarinta u qaabilsan qaramada midoobay ee yunisef ayaa sheegtay in 117 milyan oo carruur ah oo ku kala sugan 37 dal aysan xilligii loo baahnaa heli karin dawooyinka xoojiya difaaca jirkooda. dalal badan oo ku yaala qaaradda yurub ayuu ka dilaacay cudurka jadeecada, waxaana suurtagal noqon weysay sii wadista hawsha lagu samaynayay talaalka MMR-ka. waddanka UK ayaa goor horeba ka baxay liiska dalalka xorta ah ee jadeecada maadaama ay sare u sii kaceen kiisaska cusub. xanuunkan oo keena qunfac, nabaro, maqaarka ka soo baxa iyo qandho sare ayaa looga hortagi karaa talaalka loo yaqaano MMR, kaasoo 2 jeer lagu dhufta carruurta. 95 boqolkiiba carruurta waxay qaateen talaalkii hore waxayna arrinta ku socotay sida uu ahaa qorshaha hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, laakiin 87 boqolkii oo keliya ayaa fursad u helay inay qaataan qaybta labaad ee talaalka maadaama jadeecadu ay tahay cudur aad u fida. hoos u dhac yar wuxuu keeni karaa saamayn aad u ballaaran. hay-adda WHO waxay sheegtay in dalalka aysan hadda ka jirin kiisaska jadeecada ay hakin karaan ololaha talaalka haddii ay tallaabadaas noqoto lagama maarmaan. hase ahaatee ilaa 24 waddan oo horayba ula tacaalayay kiisaska ku saabsan jadeecada ayaa go'aansaday inay hakiyaan ololaha maadaama ay hadda si weyn ula tacaalayaan xanuunka safmarka ah ee coronavirus. dalalkaasi waxay kala yihiin bangaladesh, baraaziil, kolombiya iyo kongo. etoobiya ay ka mid tahay dalalka soomaaliya iyo soud afrika. hase yeeshee yunisef waxay sheegtay in xitaa dalal intaas ka badan ay hakin karaan dagaalka ka dhanka ah jadeecada. haddii xaaladda adag ay ku saabsan coronavirus ay sababtay joojinta talaalka, waxaan ku boorinaynaa madaxda in ay sii xoojiyaan dadaaladooda ku aadan raadinta carruurta aan la talaalin, si markaas ay u suurto gasho in bulshooyinka halista ku jira ay helaan daawada jadeecada islamarka ay suurtagal noqoto, ayay tidhi hay-addu. afhayeen u hadashay hay-adda oo lagu magacaabo Jona Reid ayaa intaas ku dartay hakadka ku yimid fidinta talaalka wuxuu sii xoojinayaa halista ay carruurta ugu jiraan inuu dhaco cudur dilaa ah, waxayna taasi keeni kartaa inuu faraha ka baxo cudur kale oo si baaxad leh u faafa. tanina waxay ka dhigantaa in haddii dadka waaweyn ay la tacaalayaan cudurka loo yaqaano coronavirus uu dilaaci karo hadda cudurka loo yaqaano jadeecada oo ah dilaayga qarsoon ee carruurta. tan iyo markii uu soo ifbaxay cudurkani jadeecada ayaa ilaa iyo hadda dunida ay la tacaashaa kadib markii la ogaaday inuu safmar ka dhigi karo carruurta la ildaran talaal la'aanta. sidaa darteed hay-adda WHO ayaa ku talinaysa in had iyo jeer la baadigoobo carruurta aan la tilaalin, sababtoo ah waxaa la doonaya in meel gaara lagu xanaaneeyo ama si gaara loo fiiriyo si ay u soo gaaraan tallaalada dhiman.